tiif marka ugu horeysa waxaan ka hadlaynaa tacsidii abwaan hadraawi iyo waxaad ka xasuusto walaal horta abwaan hadraawi ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waynu ducaynaynaa dhammaantiina aynu ducayno walaalkeen de abwaan qura muu hayna wuxuu ahaa daaci diinta islaamka de sidoo inoogu wacyi gelin jiray waa garanaysaan marka waxaan leeyahay dhammaanteen ba ilaahay samiriya iimaan saadiq ah inaga siiyo aynu ducayno walaal si wanaagsan waxyaabaha uu ka tagay maxaad isleedahay ayaa ka mid ah deynaadeer waxa ka mid ahaa waxa aynu mahmaha adeegsano ma garatay qalinka wax suureeya waarda ku dara ilaa reer bulcaati ugu sima halka doonto damiya la soo koobi karaya kal furan weeye saaxiib kal furan weeye waa inaga maalin oo dhan isticmaalayna marka sidaa weeye macallinkii bulshadu haa daacibuha intaas oo dhan buu inuu ducayno walaal aad dawlad ku soo dhaweynaa weeliyadii waa ku dhaweey walaal waxa weeye walaal Allah u naxariistaa waankii weynaha Hadraawi tacadisidiisa iyo waxa aad ku xasuusataan doonayna inaad nooga waranto walaal hal iyo laba walaal horta ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuriyo ilaahay su'aalaha ha u fududeeyo ee qaran qof dhintay ma ahan library dhan baas ka baxay library dhan ee daaqad madow ka baxay marka ilaahay ha u naxariisto xasuustiisina dhalinyarada maanta joogtay magaalada joogtay meel walba joogaan way haysataa qalbigeeda nin walba wuxuu ka xasuusto waa ogyahay gabayada shuna camuudaasi ka badan yihiin iyo dhalidiis أنا واحد حسوستا بلد ويلي الله هيو كدق بيرت الراحة دير الله الله هيو بالمري بلايد أنت واقع حسوستا مركو سمين إيه هستا قصوين كده وتقرنا سوي حيكون سبب صناعي مركا تاسان وشكلها سو كلية إلى مسيحي كبيحي ويلي دوال ما درسنا الله نحرس إنك الله ولا الوحوي أواكي وينا سوماريات أبوان محمد إبراهيم والسباك راوي تعسيدي سئي وحيابها تكعسطو horta wallaahi bilaayad la hor daaban Soomaaliyeed baa hadii uu noqdo kamina abaha Soomaaliyeed baa waan oran kareena kowdhide ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo abwaan maxaad ka xasuusataa maasooyinkiisa kale dhalin waxaan ka xasuustaa diciyal iskuulmiyada qalinka wax Suuriya kugu simaalga doonto saaxiib kal furan weeye waligaa siiday way Allah ha naxariisto aad ku soo dhaweynaya marka ugu horeysa weeliyad TV وبسنت أدمن سلوية ما حد شاطر اللي معي. ولا الحوية أوانكي وينام محمد الله ورسمة راوي تعسدي سأي وحيابها أتكعش صوته. دنا اسمه بالله على ما حد شاطر يدي وحنا كعش صنع. بيجهلكن كيس ويا هذا. والرولو النهر هذا أنت أرواد كور شوكته. الحكاية أكثر. هلكن كانوا هو بيسن. أظهر تكرع. أساسا قريبا. وأبان كان الله ونعرس سيجوا حسلا ونعرس شر الله كورابيو. وأبان قاعد يلبو تعسينا. والكي عثمان عثمان ولا ورسامة سعيد الله هم عسى وحي إسلام يا وحي أفضل مالك يقانة أفضل كهلا عادي أبو تعسين يجرهان ندتي سي هندي سي يقرب دي سي كسر دويني وهريتي دوين هريتي ولا الله نحاستين حضرة وسمعت راوي تعسيدي سأي وحيابها أتكحسطه إنه جوا بسم الله الرحمن الرحيم إنا إلينا راجعون كل نفس ذائقة الموت قف باب الدنيا لكن waxaan ka xasuustaa hadaladii abwaankeena waa Maxamed Ibrahim Warsiga Hadraawi alla godka u nuuro wax ka xasuustaa gabay aan u jecelahay oo ahaa gabay loo shab gabaygaas wuxuu ahaa naagta waan la yaqaba taroomeninkeedii muxuu noogu safaray ma sayfana bamaani kama goyneen gabayada iyo gabaygii daba hubeelin aan ka xasuustay gabay aad u kala badan diyan xanaaqan diinteeda caayana hadda naagta loo barooran doona wallahi waxaan ka mid yihiin dagaalada ay xasuusan doona walaal Allah u naxariisto insha Allah ilaahay wandaway walaal waxa weeyaan waxyaabaha aad ka xasuusto Hadraawi Allah u naxariisto iyo tacsidiisa hatay abdan Hadraawi Allah u naxariisto abwaan kaliya muu ahayn wuxuu ahaa macalinka nolosha ereedan ka xasuusto waxa kamid ah ninkuu yiri sinaamayno adna diid sareentiisa ma 9 baa tiisu sidkii way wadaagtaan oo reedi abwaankaas wuxuu ahaa abwaan qaran wuxuu ahaa macalinka nolosha marka Allah waxa uga bariyaa jannatu firdiis inuu geeyo marka weheliti faadna saaxibaad ba ku salaamay dood ma santaa wala Allah u naxariistay abwaan Hadraawi iyo waxyaabaha aad ka xasuusto suugaan ahaan iyo taariikh ahaan horta wax suugaan oo aan ka xasuusta ma jirto runtii wanaagsan laakiin abwaan Hadraawi maxamed Ibrahim Warsame Saciid waxa macallin weyn oo Soomaaliyeed oo in badan Soomaaliyeed soo gacan qaban jiray marka macallin waa unta casiyana macallinka wax ka dad maasan oo soo dhaweynaya weheliyadii TV adan marka hore waxaan ka hadlaynaa tacsida Allah u naxariistay abwaan Hadraawi iyo taariikhiisa waxaad ka xasuustaa adeer waa mahadsantahay way soo dhaweynayaa horta ugu hore waxa uu tacsideynaa geeridaan xanta ku tim abwaanka
waxaan uga taxsiinay qaranka Soomaaliland iyo eheladiisa iyo dhammaan qowmiyadda Soomaalida oo afka Soomaali ku hadla ninkaas wuxuu ahaa ummad buu ahaa yani uu ka qiimo weynaa shakhsi yani ummad buu ahaa fikirkiisa uu ka weynaa Afrika oo ka sirri waa fikir caalami aaminsan buu ahaa marka yani nin sahlan mu ahay marka ninkaasi dawladdu waxay weeyday nin weyn tiir weyn marka ilaahay waxaan ka rajaynaa bedelkiisa in ummadda uu siiyo nin isagoo kala ah ya insha Allah ninka ummadaha caalamka ninka fikirka ahi wuxuu ka qiimo badan yahay boqolaal kun oo qof laano yani wuxuu bedeli karaa ummada dhan qofka fikirka ahi marka waxaan oran karaa William Shakespeare oo kale halka ugu jiro reer galbeedka ayuu inoo ku jiray oo Afrikaanka ugu jiray ya marka nin uu ka sareeyaba Soomaali u dhaafsay fikirkiisu iyo maxaan ku Afrikada fikir caalami aaminsan marka ilaahay maxaad ka xasuusataa suugaanahan wallahi niyo suugaayaan ma yo baashta uma xafido dawaan dhigaysa laakiin ma qabto laakiin ninkaasi waxa aad ii soo jiita markuu ka hadlayo bergii dagaaladii ka dhacay wadanka uu tilmaamay say u dhacayaan dabti sidii uu tilmaamay u dhaceen waxaan kaloo aad ii soo jiita markuu ka hadlayo inankii inanta isjecel ee markaa kala tegay ee waqti kala fogaaday ee isku deegaan ahaan jiray ee bergii dambe isu yimi iyagoo israba isdoonay aakhirtaankii waxa isdoonaanba say isu doonayeen kaymaha ugu jiran bay salaan marka inta aynu isu jiro soo jirsadeen ayuu qof kasta halkii istaagay isagoo dhaqankii ilaalinaya ya inta waxa ku jira hadalkiisa inta wax ka badan way ku dhiiran waayeen marka yani in jirkooda isgaaro halkii bay ku qalaleen waxa ka baxay aboor baa ku baxay dindumooyin bay noqdeen ya dadka harsaday iyo xoolaha laakiin dadkani ma oga in halka laba qof ay ku duugan yihiin ya ma saasina aad bay soo jeedaa aadan ku soo dhaweynaya walaal waan ku soo dhaweynayaa sidoo kale weheliya TV waan ku dhawahay walaal waxa weeyaan Allah u naxariisto taariikhda Abwaan Hadraawi iyo markaas waxyaabaha ka xasuusta Allah u naxariisto abwaankii weynaaye محمد إبراهيم ورسمه هاتراوي وحوها أبوان قرن مو هين أبوان قبيل مو هين وحوها حديقو صوب حدي كون يسقال بقول يصدح يا فرتنكي أفريقيا كندا عدي تضبية طبعا كي بشي سديدات لبضة كون يلبية لبعتنكا أبوان كوحوها معلم وين بوها ميساننا كله بهذا السوقان تيو رقنكا يو أفكا الصوماليكا أنت كو هذا الشبع marka aad baan ugu tacsiyadeynaya abwaanka geerida ku timi ma ahayn geeri qof ku timi iyo geeri qoys ku timi iyo mid qabiil ku timi toona laakiin waxa ahayd geeri qaran bay ahayd aad bad ma waxaad ka xasuusta walaal Hadraawi Allah u naxariisto tacsiis walaal waxaan ka xasuustaa horta Abwaan Hadraawi rahimahullah rahmatan wasi'a wuxuu ahaa abwaan Soomaaliyeed filosoofar buu ahaa taariikhdiisa haddana sunaano ka sheekaya caawa dhan dhamayn mayno waxa uu ku dhashay gobolka Togdheer miyigiisa kadib waxa uu yimi gobolka Togdheer adeerkiyo cadan jooga ayaa markii waalidkii dhintay kafaalo qaaday waxbarasho ku daray markii dambena wuxuu ku soo noqday wadanka dawladda Soomaaliyeed ee ka jirto waxaana uu keenay riwaayado cusub iyo mawduucyo cusub kadib waxa uu noqday wuxuu ka shaqeyn jiray raadiyo Muqdisho kadib waxa uu tagay iskuul ku yaala gobolada dhexe uu ka shaqeyn jiray macalinka ahaa markii dambena wuxuu ku soo biiray bahda suugaanta halkaasoo dawladda Soomaaliya marar badan ku xidhay markii ay xidhay ay kamid ahaayeen maray 5 sano xidhay oo tuulooyin kamid ah tuulooyinka ku xidhay deegaamada Soomaalida taariikhdiisu waxay taariikh dheer wuxuu soo maray macalinimo suugaano waaweyn suugaanihiisa waxa kamid ah suugaantii loo oran jiray dabahuwan suugaantaasoo dhinac walba Soomaalida ka eegaysa xagga waxbarashada xagga diinta xagga waxqabadka suugaanta kaliya la oran karaa way ku filan tahay waa 800 beyd waa suugaan fac weyn leh waxbarashada taabanaysa waxay kaloo taabanaysaa wax soo saarka waxay kaloo taabanaysaa dhammaan waxyaabaha ay bulshadu u baahan tahay diintoodu sida ay ahayd adduunyadu sida ay ahayd sida gaaladu u dhalan rogtay waxyaabo badan bay taabanaysaa aad ma oo ku soo dhaweynaya walaal weheliya TV waan ku dhawahay walaal Allah u naxariisto Maxamed Ibraahim Hadraawi maxaad ka xasuustaa tacsiiska walaal waxyaabo badan ma ka xasuustaa wuxuu ahaa abwaan aad u qiimo badan oo qiimo ballaaran bulshada aad ugu weyn marka wallahi lama soo koobi karo waxyaabo badan ma ka xasuustaa waxa kamid ah maansadii heesiyo kale ahayd hooyo la'aanta adduunyadu hawaash habeen kama baxdeen oo kale taasoo aad baan wax xasuustaa aad ma oo soo dhaweynaya walaal qaali weheliya TV
walaal waan ku dhawaay waa maasantaa walaal allah u naxariisto raawi maxaad ka xasuustaa tacsidiisa walaal horta abwaankiinii weynaa ayaa naga baxay taariikhda intaanada soo koob ma soo koobi karno waxa uu ahaa runtii maktabad guuraysa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye abwaanku waxa uu tiriyay maasooyin badan waxa uu oriyay oo sidoo kale maasooyin badan abwaanku waxa uu ahaa horta abwaan muu hayna waxa uu ahaa macallin waxa uu kaloo ahaa daaci diinta dadka ayuu ugu yeeri jiray sidoo kale waxa uu ahaa abwaankii waxa uu ahaa nimankii ku kacay taariikhdii markii siyaad barrow haystay nimankii maasooyinka tiriya ayuu ahaa aad dad maas soo dhaweynaya walaal wadhawahay magacaygu cabdikariim xuseen maxamed waxaan ku weydiinaynaa walaal taariikhda allah u naxariisto hadraawi iyo hadraawi allah u naxariistay wuxuu ahaa nin ballaaran hadraawi ma ahay nin haddii aan iminka taariikhdiisa galo in la soo koobi karayo hadraawi wuxuu ahaa abwaan wuxuu ahaa cabqari wuxuu ahaa raggii kelitaliskan berigii siyaad barree dalka aad uga hadlay u dhalin waa dhawahay tacsida allah u naxariisto hadraawi iyo taariikhda waxaad ka xasuusato nala wadaag bismillaahi raxmaan raxiim dee hadraawi horta nin weyn buu ahaa oo taariikhdiisa dee aniga iyo dadka la midka ah aanay ka sheekayn karayn laakiin wuxuu ahaa rajul cadiim oo weyn taariikh weynna kule waxa weeyaan dalka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu uga baryaynaa jannatulfirdows lacalaa inuu ilaahay ka waraabiyo una dembi dhaafo wanaaggii faraha badnaa iyo sooyaalkii taariikhyada dalka uu ku lahaana in maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu naxariisto marka rajul kabiira buu ahaa taariikhdiisa aniga iyo kuwa la midka ah toona aanay ka sheekayn karayn laakiin ragga amtaashiisa waa ka sheekayn karaa taariikh aad weyn buu lahaa fac weyn